caawa qodobada barnaamijkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah warbaahinta Israa'iil oo sheegaysa 24 saac ee nagu soo aadan in Mareykanka la filayo weerar cirka inuu ku qaado Iran. golaha wasiirada ee Israa'iil oo kulan degdega isugu yimid heegankii ugu sarreeyana Israa'iil way gashay. Iran oo iyadana heegan buuxa ku jirta. dowladihii khaliijka oo caawa war aad u culus iyo fariin isugu daray Trump. haddaba maxaa ka soconaya gobolka bariga dhexe caawa? xaaladu waa sidee? hurdo la'aan ayaa laga soo sheegayaa halkaas. cabsida way sii korortay caawa. maxaa isbedelay? wararkaas ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa xamaas ninkii hogaamin lahaa oo hadda la sheegay 2 qof inay isugu soo urureen. labada qof ayay u badan tahay midkood in bishan gudaheeda xamaas uu hogaamiyo u noqdo. haddaba tafaasiisha doorashada xamaas ayaa iyana barnaamijka ku soo qaadanaynaa. qaybta ugu dambaysa waxaan idinkugu hayaa sheeko cajiiba oo ka dhacday daanta galbeed. dukaan lagu iibiyo dahabka oo la sheegay dad ku labisan dareyska ciidanka Israa'iil inay maalin cad boob u geysteen iyo dhac. haddaba Israa'iil maxay ka tiri arikaas? ma ciidankoodiya ma kuwa yahuudo dharkooda soo labistaa? dharkase xaggee ka keeneen? sheekooyin cajiiba ayaan iyana barnaamijka ku faahfaahinaynaa. qodobadaas ayaynu caawa barnaamijka idinkugu haynaa. intaan ku jirno wixii soo kordha waan idinla socodsiinaya. kulanti wanaagsan asxaabay, meel kastoo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii habeennimo. waan hubaa inaad si weyn uga hesheen barnaamijyadaydii subaxnimo iyo kii galabnimo labadaba. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa xaalada gobolka bariga dhexe caawa. hurda la'aan ayaa la sheegayaa. 24 saac ee nagu soo aadan xilli kasta ayuu dhici karaa weerar cirka ah oo uu Mareykanku qabanqaabinayo inuu ku qaado Iran. weerarka maxaa ka dhalan kara? Iran oo heegankii ugu sarreeyay gashay. Israa'iil oo iyaduna heegan buuxa ku jirta. waa tahay haddaba marka maxaa laga qoray caawa sheekadan soo korortay iyo hurdo la'aantan ka jirta bariga dhexe? haddaba jiradda la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa caawa qoraysa warbixin ay leedahay warbaahinta cibrigu. waxay sheegeen in Trump uu weerari doono weerar militarina ku qaadi doono Iran. dhanka kalena waxaa la sheegay in Israa'iil ay gashay xaalad degdega tii ugu dambeysay. golaha wasiirada kabinetkana waxaa la isugu yeeray kulan degdega oo Israa'iil markaa ay isugu imanayaan. hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa sheegaysa in Trump uu weerari doono Iran oo markaa weerar culus uu ku qaadi doono. haddaba waxaa la sheegay xaalada gobolka bariga dhexe in ay ku jirto heegan aad u sarreeya. bariga dhexe dhagaha taagan dadkii oo dhan. goormuu dhici doonaa weerarka? waataa barnaamijkii galabta kusoo qaatay inaad daawateen inuu lahaa soo baxa, bannaanka u soo baxa, waan idin taageerayaa mudaharaadayaasha uu ku lahaa. haddaba muxuu samayn doonaa Trump? mar wuxuu leeyahay wada hadalaan u wareegay. Iran laakiin hore u sheegto waxay tiri ma ku aaminayno adeer. nabadaada iyo dagaalkaaga waxaa rabta la imaaw, annagu diyaara ku nahay. xaalku marka cirku isku shareeray caawa waxa maraysaa meeshii ugu xumayd. Israa'iil waxaa la arkay heegankii ugu sarreeyay leeyihiin. warbaahinteeda ayay ciidamadeeda ku jiraan. golihii wasiirada Israa'iil kabinetkana waa wasiiro kooban ayaa shir degdega caawa la isugu yeeray si looga wada hadlo waxa dhici doona. Israa'iil siday uga jawaabi doonto haddii Iran ay soo weerarto. xaalku halkaas markuu marayo dowladihii khaliijka ayaa caawa iyaguna fariin culus u diray Trump. fariin ayay u direen. haddaba marka aan idin tuso warbixinta laga qoray iyana sheekadan ku saabsan khaliijka. wargeyska Ra'yul Yawm wuxuu leeyahay dowladaha khaliijka waxay cadaadis saarayaan Trump si ay uga hor istaagaan inuu duqeeyo Iran oo uu weerar ku qaado. Sacuudiguna si toos ah ayuu u sheegay inaanu ogolayn in la adeegsado hawadiisa oo laga weeraro Iran. joornaal Mareykana ayaa arrinkan caawa waxaa la sheegayaa inuu soo bandhigay. haddaba
jiradda la yiraahdo Wall Street Journal ee Mareykanka laga leeyahay ayaa caawa waxay qortay in Sacuudiga, Qatar, saldanada Cumaan ay u gudbiyeen Mareykanka iyo Trump in aan la isticmaali karin hawadooda, waxayna ugu baaqeen inuu ka joogsado weerar military oo xilligan uu ku qaado Iran, waxayna sheegeen qatarta ka dhalan karta weerarkaas. Riyadh waxay si toos ah u sheegtay iyadoo la hadashay Tehran inaanay marnaba ogolaan doonin Mareykanka inay hawadeeda isticmaalaan si markaa ay halkaa uga weeraraan Iran. Sacuudiga wuxuu la hadlay Iran wuxuuna u sheegay inaanay arrinkaa marnaba aqbali doonin. maxaa dhacaya marka? waxaa la leeyahay maxaa dhici kara? Iran de way sheegtay, iyadu waxay tiri Khaliijow haddii agtiina weerar ilagaga soo qaado Mareykan nagtaan ka saaraya saldhigyadiisa. Qatar, Sacuudiga kulli way qaylinayaan, saldanada Cumaan kulligood waxay leeyihiin arrinkaa hadda xilligan maaha, wax kastaa dhici karaa, dagaalka farahu ka bixi karaa, Trump ka joog, way la hadlayaan, cadaadis saarayaan, Trump ma dhagaysanayaan, lama yaqaan. odagaas wuxuu doonuu iska samaynayaa. hadda ka horba weerarkii uu ku qaaday Iran isagoo yiri 15 maalmood u qabtay Iran ayuu habeenkii ku xigana weeraray. Iran marka waxay taagan tahay ninkan maba aamini karnaba annaga, wuxuu rabo ha sheego, ha daldalo, nabad, dagaal, wuxuu rabo annagu diyaarana. la taliyaha Aayatullaahiga ayaa isaguna hadlay caawa, wuxuu sheegay inay wax walba diyaar u yihiin, nabad diyaar. hadduu weerar soo qaadana Iran iyaduna inay ka jawaabi doonto. marka waxaa leeyahay gobolka bariga dhexe caawa waa karkaraya, xaalkiisu ma wanaagsana. warbaahinta Israa'iil waxayba sii sheegayaan oo leeyihiin 24 saac ee soo socota Trump waa weerari doonaa. maanta kulan ayaa dhacay saacada ka hor aqalka cad, waxaa ku kulmay Trump iyo raggiisa sare, wasiirkiisa arrimaha dibadda, wasiirka gaashaandhigga, abaaduulaha ciidanka, wixii oo dhan. kollay go'aanka halkaa muu ka soo baxay lama yaqaano. haddaba marka sheekadu halkaasay maraysaa. xilli kastana waa suuragalaa la leeyahay in Trump uu weeraro. marka haddii weerar dhacana waa arki doonaa wixii akhbaara, halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. qodobka labaad ee caawa barnaamijka aan ku faahfaahinayno wuxuu yahay doorashadii Xamaas ayaa socota. waxaa leeyahay 2 qof ayaa hadda isku soo haray oo ugu cadcad inay ku tartamayaan xilka hogaamiyaha xafiiska siyaasadda ee Xamaas. haddaba marka aan idin tuso warka laga qoray doorashadan Xamaas, haddaba waxaa la sheegayaa ninka la yiraahdo Khaliil Al-Haya iyo Khalid Mishcal ayaa ugu cadcad ayaa la leeyahay inay qabtaan xilka in loo doorto xafiiska siyaasadda ee ururka Xamaas. haddaba waxaa la sheegayaa sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, xarakada Xamaas inay filayso in xarakadu ay yeelato hogaamiye cusub oo xafiiska siyaasadda ah bishan aynu ku jirno gudaheeda, kadib markii la dilay hogaamiyahoodii hore Yaxya Sinwar sanadkii dhammaaday sanadkii 2024. marka sidaas ayay marka hawshu tahay. labadaa qofaa ugu cadcadaa la leeyahay. ninka la yidhaha Khaliil Al-Haya oo wada hadallada iyo waxa kan iyo muddadii ugu dambaysayba qaabilsanaa, iyo ninka la yiraahdo Khalid Mishcal. bishan gudaheeda ayaana maaragtay doorashadu ay dhammaan doontaa la leeyahay. qaabka isu dooranayaana waa telefoonna iyo waxbay isku diri doonaan, qof walba codkiisa sidaasaa looga qaadi doonaa. nidaamkaas ayay wax ku doortaan. qadar xayeysiisa kadib waxaan galaynaa sheeko la yaab leh oo ka dhacday dhulka Falastiiniyiinta ee Israa'iil xooga ku haysato ee daanta galbeed, halkaasoo arrin la yaab leh dukaan maalin cad lagu sameeyay Falastiiniyiintu ay leeyihiin. kulanti wanaagsan asxaabay, meel kastoo aad naga daawanaysaan barnaamijkeennii habeennimo qaybihii ugu dambeeyay ayaynu maraynaa. haddaba qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa dukaan lagu iibiyo mujawharaadka. waxaa la yidhahdaa waxyaabahan maaragtay dahabka iyo waxyaabahaas lagu iibiyo ayaa maalin cad
dad soo gashtay dareeska ciidanka Israa'iil ay weerareen oo ay dhaceen waxaa lagu tilmaamay filin adoo daawanaya camal ay ahaydaley Hollywoodka filimaanta oo kala meesha ka dhacay haddaba aan idin tuso jireedda la yiraahdo Sharqul Awsad waxay leedahay tuuganimo ayaa lagu sameeyay oo la dhacay xarun lagu iibinayay jawharaadka ama dahabka iyo waxyaabaha la midka ah daanta galbeed ku taala haddaba ciidamada Israa'iil dharkooda dad soo gashaday oo markaa halkaa isu ekeysiyay ciidamada ayaa dhac ka geystaa la leeyahay haddaba wararkii ugu dambeeyay arikaa waxay sheegayaan in deegaanka la yiraahdo Dhaahiriya oo ku yaala koonfurta Khaliil ee daanta galbeed maalin cad halkaa markaa lagu dhacay waxaana dadka weerarka qaaday ay gashanayeen dareeska ciidanka Israa'iil haddaba warbaahinta Israa'iil ayaa caawa ka hadlaysa sheekada waxayna ku tilmaameen inuu ahaa mashhad ama muuqaal filin oo kala waxa meesha ka dhacay booliiska Israa'iil ayaa sheegay inay xireen 3 qof oo markaa lagu tuhumayo inay iyagu arinka ku lug lahaayeen kuwa kalena waa la raadinayaa sida ay sheegeen sheekayabloy waxa la isweydiinayaa askar ma ahana leeyahay dad dharka soo gashada waay dharka xagee ka keenayna leeyahay marka dharka meel kasta mu iska yaala ciidanka Israa'iil sidee dharka dadkan ku soo heleen booliisku saddexda ay soo qabteen maxay uga hadli waayeen waxay yihiin haddaba sheeko waalan ayaa halkaa ka socota maalin cad ayaa la isdhacayaa sheeko waaliyaa ka dhacaysa dhulkaas Israa'iil ayaa xooga ku haysata daanta galbeed dhibaatadaas ayaana markaa dadka Falastiiniyiinta loo geystay wararkaas ayaa caawa soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn wixii soo kordha xaaladda waliba aaday u kulushahay ku saabsan bariga dhexe waan idinla socodsiin doonaa like garay oo share garay barnaamijka haddaad cusub tahay subscribe baa ka iloobi YouTube-ka Facebook-ga follow garay asxaabay meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay nabadgelyo